awoodda baraha bulshada waxay noqotay mid waxyaabo badan oo cajiib ah lagu soo bandhigay. marar badan waxay sababtay isbeddelka nolosha dad badan oo marnaba aanan filayn inay caan noqdaan ama ay helaan hanti. Ranu Mondal oo ah haweeney u dhalatay dalka Hindiya waxay seexan jirtay gidaarada meel laga raaco tareenada. waxay caan ku noqotay Muqaal laga duubay iyadoo heesaysa fiidiyowga ayaa lagu baahiyay baraha bulshada. Ranu oo fadhida goob laga raaco tareenka oo ku taala magaalada Calcutta ee galbeedka Hindiya waxay ku heesaysay cod aad u macaan kaas oo nin dhalinyaro ah uu ku dhaliyay inuu ka duubo muuqaal kadibna bartiisa bulsho uu ku baahiyo. muuqaalka waxa maalmo gudahood ku daawday in ka badan 1 milyan oo qof kuwaas oo aad ula dhacay codka halaasiga ee Ranu iyo haybada uu Ilaahay siiyay. waxay qaadaysay heesta bayaarka nagmahay ee ay horay u qaaday fanaanad u dhalatay dalkaas Hindiya oo lagu magacaabo Lata Mangeshkar. haweeneydan 59 jirka waxaa markiiba baadigoob u galay shirkadaha duuba heesaha dalka Hindiya iyo barnaamijyada tartanka ee ka baxa telefishinada dalkaas kuwaas oo doonayay inay soo bandhigaan haybada ay leedahay ee dhanka codka. waxayna noqotay in la xiriiray ninkii muuqaalka ka duubay oo markii dambe soo tilmaamay halka uu ku arkay iyo meelaha laga heli karo. dadkii ugu horeeyay ee la kulmay Ranu waxa kamid ah jilaaga caanka ee Himesh Reshammiya oo u soo bandhigay inay duubto oo ay ku luuqayso mid ka mid ah heesaha ku jira filimkiisa Happy Hardy and Hair ee aan wali soo bixin. haweeneydan codka macaan ayaa ogolaatay dalabka Himesh waxayna ku luuqaysay hees caan baxday oo lagu magacaabo Teri Meri Kahani taa oo markii ay duubaysay uu muuqaal kooban ka duubay kadibna uu baraha bulshada soo dhigay. jilaaga ayaa sidoo kale sheegay in mar kale uu doonayo in Ranu uu kala shaqeeyo qayb kale oo ka mid ah filimkiisa. mar wax laga weydiiyay guusha ay gaadhay Ranu waxay tiri ujeedada ah inaan fanaanad noqdo ma ahayn inaan lacag helo sidaasna ma ahayn ujeedkayga ee waxay ahayd inaan helo fursad aan ku soo bandhigo hibada aan leeyahay iyo inaan helo waxaan ku noolaado ayay tiri Ranu oo la hadlaysay wargeyska Hindustani Times ee ka soo baxa dalka Hindiya. dad badan ayaa aad uga helay codka halaasiga ee Ranu Mondal waxayna baraha bulshada soo dhigeen sida ay ugu faraxsan yihiin in la ogaaday waxtarka ay leedahay. Lata oo ah tirishadii qaaday heestii ay ku caan baxday Ranu oo la hadashay warbaahinta maxalliga ee dalkaas Hindiya ayaa sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay guusha ay gaadhay. waxay tiri iyadoo la hadlaysa warbaahinta dalkaasi haddii qof uu ku faa'iiday magacayga iyo shaqadii aan qabtay waxaan dareemayaa inaan nasiib badanahay. warbaahinta Hindiya ayaa ku soo warantay in Ranu ay heshay nolol fiican ayna mushahar qaadatay haatanna ay haysato $100,000. lacagtan ayaa la sheegay in Ranu ay ka sameysay heesihii ay qaaday iyo barnaamijyadii ay u duubtay qaar ka mid ah telefishinada dalkaas. sidoo kale fanaanada Ranu ayaa dib u la midowday gabadha ay dhashay oo lagu magacaabo Elizabeth taa oo dad badan ay ku eedeeyeen inay dayacday hooyadeed. hase yeeshee Elizabeth ayaa sheegtay in ay iyaduna la daalaadhacaysay nolosha oo aysan dayacin hooyadeed. waxaan ahay ayay tiri hooyo korinaysay caruurteeda oo waxaan koriyay wiil yar oo aan dhalay. nolosheeda ayaan la daalaadhacayay waan isku dayay inaan ka warhayo hooyaday oo xitaa waxaan rabay inay nala noolaato balse hooyo ma aysan rabin in ay anaga nala noolaato sidaas oo ay tahayna dadku aniga ayay eedeeyaan ayay tiri Elizabeth. Ranu ayaa hadda la nool gabadheeda waxaana loogu yeeraa hooyadii codka halaasiga ah ee Hindiya. ujeedka aan sheekadan u soo bandhigayno ayaa ah fadlan uga faa'iidee waqtigaaga iyo noloshaadaba dadka la daalaadhacaya nolosha ee aad si leedahay hibo gaar ah ayay leeyihiin.